samaynta heesaha iyo gabayadu waa badweyn in koobani ka dabaashaan samaynta heeso ama heelooyin macna xambaarsan oo ku salaysan waayaha hadba taagan. waxaan barnaamijkan ku soo qaadanaynaa heesta rubuc qarni ee kooxda xidigaha geesku sanadkii 2016 qaadeen oo curinteedu uu lahaa Boobe Yuusuf Ducaale Boobe. Boobe waa rugcadaad taariikhiyahana isla markaana halgamaa oo ka mid ahaa halgankii hubaysnaayay SNM. Boobe waa cilmi baare ku xeel dheer arrimaha bulshada iyo dimuqraadiyadeynta. sidoo kale Boobe waa qoraal dhowr buug soo saaray oo bulshada afka Soomaaliga ku hadasha ay akhristaan oo jecel yihiin inay wax ka bartaan qoraalada iyo buugaagta Boobe Yuusuf Ducaale. sidoo kale Boobe waa suugaanyahan curiya gabayo iyo heeso u badan wadaniyada. heesta rubuc qarni waxay ka mid tahay heesaha ugu dambeeyay ee ugu talagalay Boobe in lagu xuso oo lagu dabaaldego xusaska 18 May. heesta rubuc qarni waa tii labaad ee aanu sameeyo munaasabada May 18keeda waxa ka horeysay mid 2020 guuradii ahayd oo iyadana kooxda geesku ay qaado tanna waa 25 guuradii ama rubuc qarni waa un maalmaha xusuusta mudan Saara Ahmed waxay qaaday heesta soo dhuuxay matraacin dhiigaba annagana dhuuxiyo dhiigba midaas raacday waxay ku bilaabmaysaa intan calan yahow laakiin tii kuwa dambe oo dhami waxay ku bilaabmayaan calan yahow gugii xigay marka taariikhdii lama ilaawaanka ahayd iyo tallaabooyinkii lama ilaawaanka ahaa ee mahadhada reebay ee ay Soomaaliland soo martay ayay mid u dul joogsanaysaa oo ay nabadeyntii iyo hubdhigistii ka mid tahay oo ay ka mid yihiin shirkii burco ee lagu dhawaaqay madax banaanida Soomaaliland ka mid yahay shirkii Boorame ee lagu soo sameeyay dawladii cigaal SNM ay xilka ku wareejisay waxaan kaga hadlayaa dimuqraadiyadeyntii iyo geedi socodkii dimuqraadiyadda axsaabta sameyntoodii ururadii axsaabtii iyo doorashooyinkii waxay ku dhamaanaysaa ugu dambeeyaa ma اعترافكن قاسري مجنانة كيجي اعترافكن قاسران قول تشوشنتيسا وحاول جدا بيجي قريبتها اللي وش هذين يا قنصجي مدح بناني سوماليلاند heesta rubuc qarni waa heesaha maanta loogu jecel yahay in la dhageysto maalmaha xusaska 18 May. tolow maxaa lagu jeclaaday? waa marka hore tii hore ay qaadeen ee ahayd 20 guurada dadkuna aad u jeclaystay kasokow anigu de halabuur meehi marmar bay ugu soo dhacdaa marmar bay qabsataa marka ay qabsatay ku jirtay marka kasokow wixii ka dhiman ka dhantaalma ereyadaada waa waxay ku buuxin karayaan ama codka ku buuxin karaan ama muusiga ku buuxin karaan ama habka qaadista marka ee kooxaha dalka jooga waa kuwa loogu qaatay lagu dagay asii qadintoon hambaliyay dhammaan shacbiga reer Soomaaliland meel kasta ay joogaanba gaar ahaan intii naf iyo maal iyo waqtiga u soo hortay halgankii hubaysnayd iyo xoreynta qaran ee SNM horseedka ahayd maadaama ay bisha ku jirno
waxaan intaa ku dhan barnaamijkeennii bilig oonu ku soo qaadano muwaadiic xiise leh intaynu dib u kulmi doono waa anigoo ah cali jibriil sidaa iyo ammaano alleh